knn wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay arreer kalamaanow ama dhirifa ama ooyo hofadaasan geeka hees ajaa'ib le wasiin heese nasiibkay haddaan ku helaye liyaday farhad baad u tahay indhaha nuur baad u tahay wadnaha nafaqaad u tahay qalbigaad naxariis u tahay naftana ruuxaad u tahay barasho wanaagsan amiir fannaanow waa ku fahmnee heesamaday waxaan u qaatay caashaqii durduriyo badweyn kula dabaasha doona aad u bixi karin maxaa lagu daweeyaa warwar ma haysaane ninka deestiisa qaadaysaan waa amiir الثالث الشباب والفنان الكبير abshirta allah nawaafijiyo adduunya ceewaa looga hortaa aakhirna cadaab akhi waxaas waa fawdo islaamkeena qadda ku tahay allah u naxariistay sheekh Umar Faaruq wuxuu yiri bi'ay dambi gafkeeba qutila lagu dilay gabarta waradeer nimanka ka baxa dhiigiina bay raaceene warnimayo waxa jirta qaacida la yiraa kalluunku baddu ku dhaxnool yahay ilaa biyaha la dhameeyana ma dhinto marka waxaan ka baqayaa inay dawladdu qaacidadaas qaadato ay tiraahdo shabaab shacabkay ku nool yihiin ilaa shacabka la dhameeyana dhiban mayaan war aan hal war ma hayto sheekadaba heega dawladda nigu qoytiin aryaadaha ka warrama amiir fanaanka leylay heesta la yiraa isla qalqaloocahay hadduu abwaanguura erayada u sameeyay tiin ku absadaayo aan shalay basiin ari turubkum biga ka saara anigu erayada ma aqaan wax sameeyay laakiin laxanku waa kii dul yar wareedaha liman cabdi warsame aba sameeyo laxmeeyaa la dhahay amiir fanaanka la sheegayo talow muusikada kooxdii u tuntayay ahaayeen anigu telefishinka qarankan ka daawaday ayadoo la leeyahay alfanaan hebelka gaarane war uniiba dhagaagan waran dheegana dhoohane ee maahine lankaas heeso jeymeen badan ayna ka saasiyada dad lama aamino sagiiri kabiir hal haba la aamino ma jiro yak jirjirtay heestis law caarif uyuuna antakum geetalaalu ma ka wada nacam hada qaa'inul kabiir ma'a al-amir aryaadaha waxay dhihi jireen man qatala waahid murtad dakhala al-janna waxayna intaas raaci jireen man qatala 10 murtadiin dakhala al-janna fil janna haya shiiqow man ruuxi qaatilu naftiisa dila maxaa lagu sameeynaya ruuxi naftiisa dila dakhala fi naar eebba igu ogo amiir niikinaaba haddii la arkay nin la aamina ma laha adduunyadaas waa fakad oo ilka casama dhegaysan maya markuu lahaa waa mubax wixii qayaanaa warnimayo amiirka fanaanka waxaa la soo bandhigay qaraxiisoo ba isagoo iska dhigaya wax tiiraanyaysan oo dhahaya maxaa ummaddan loo leynayaa masaakiinta ilaa hoosow ka faraxsanay ma ogine sambalool shakaasoo kale wuxuu yidhaa koro ka dhaylkaraayin oo micnaheedu yaa ooyintii iyo xaaska aryaadhaha iyo xaas ooyaaya waa ii koobe ka warramahe warwarka ay dhaxgelinay wariye gurbiyana wuxuu yiri sida muuqata innaga ay qarandumisna dhahayaan canshuurteena ay biishaan baraha bulshada ay nagu caayaan qarax markii uu dhaco way soo hiyaan dawladnimada ay isxijiyaan waliba farmaajo iyo khayr ay diideen in la xisaabtamo haddana si hoose ay u shirqoolaan oo isu qarxiyaan warnaa waxaan maqli jiray iyadoo dadka lagu wacyi geliyo intaadna isguursan isbaaro caafimaadkiina ogaada hadda waxay maraysaa intaadna wada shaqeynoo is aaminin horta hay'adaha amniga u tagay isbaara warnamiya may dheega jiray qaylaho buweerta masaajidada halka aruuray hata dadkana nisbaare iyo baaraan adalata iyo nafti oo qaylooda ku weerti war dhakhtar xanuunsan wax ma daweeye hay'adaha amniga laftirkooda baaritaan raba war adeer dadkan xanuunsanaya yaranagu ictiraaf ka doorayna warniyo dhowrkan bilood eragaas ma maqale wali ictiraafkii miyaa idinka maqnaa qaladnankii galo waa qasaara qandanin haysto qayaas male yadheega jari aryaadhaha war ma haysiine xokayihi guude qaramada madoobay ninka ahaa jira Koofi Annan 20 sano ka hor buugow qore waxa
wuxuu ku yidhi 2020 waxaa la gaari doonaa ninka iyo naagtiisa oo is-aamini waaya ee lama qol kala seexda berigaas anigu warkiisa waa beensahaya haddaanaanse ka daba imid inay run tahay yadayhe waa cabdilo hadda ma laba qolaad kala seexatiin wartaas anigu gorday siyaas Ameerikaan leere isngii haaskin shaljiifada awlaad ban dhalengan iraan fadaayan wareeda war ma haysaane General Inda Cadda maanta qandigii sirta furfuray wax badan oo dadka ka qarsoonaana banaanka soo dhigay wuxuu yiri shabaabku wasiiraday ku jiraan xildhibaanaday ku jiraan madaxtooyaday ka shaqeeyaan hay-adaha dawladda ka buuxaan buu yiri meeqa sanaan dhahayna nin bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniyahe shaki male inay lama shabaab wada shaqeeyaan ahey lan shartiyo horaan argay waana halishintaagaya sheegi geeka amba meeqaan lahaa General Inda Cadda laga dhigo taliyaha nabad sugidda warkaan naga dhexgelinina naga dhageysta wuxuu yiri General Inda Cadde hadda ka hor aniga saraakiilkana madaxweynuhu noo yeeray shaqo waajib qaran uu noo diray markaan madaxweynaha ka tagnay ayaa jannaale layga soo wacay waxa la yiri waa ognahay waxa lagu soo diray waana ku sugaynaa saaxiib haddaad awood leedahay isu kaanakeen war arintu may maroyte ku sheekeeye ka sheekeeye hala sheekaysan arooda General Inda Cadde waxaa siri dadka amniga loo xil saaray maba yaqaanaanba shabaabka marka shaqo qofan aqoonin loo dirayne siday noqonayso waa la wada ogyahay war dadku aan madiyaan fiiri la malaria hayto may leeyin tooban gaal hal tooboy ina leeyin war wax ma ogidine amni 4.5 lagu qaybiyaayo in la sugo lama rabo war amni aan la oran yaa sugi kara ee la yiri yaa taageersan aniga ma sugmaayo ogow haddaan taabic la isku ahayna lama wada shaqay kare aqaltiir la'aantiis kaligii ma taagmo haddaynan istaakulin tabar yeelan mayne katashada cadaawo haye isku tiirsanaada wartaas ma yaqaanin dadkaanu waxay yaqaanin turunturoodo kuftay dhacday ayaa taqaan taladii seebtoo luntay ayaa taqaan war reer marmaluuqow ma halkaasaa taagantiin weli aryadhaha waxaad heesa soo qarbudayseen ood la cabaadayseen hiba maxamed iyo xaliimo qalif magool waa ka raalligeliha war heestii amiirka kow ku cayaareen maxaad uga raalligelin weyse maclasaf amiir gaarane aan dhahaa taasna warnimayo maanta waxaan dhegaystay wasiirka gargaarka Xamse oo hadlaaya muaawinigii biyaan eray haye madaysaq bushwelkan boy ma bilowday warka ay dhaxgelina waxa la weydiiyay lacagta $1 bilyan ah ayaad codsateen hadii la helo dhulka shabaab hayso dadka ku nool sideed u gaarsiinaysaan wuxuu ku jawaabay macna malataas shabaabku waa Soomaali haye maad xaydin kaga cadaada mugga warkii Inda Cadde inoo sahaynii sheegdi warnimaanu waxaan ku riyooday maalintii dhaweeyo torotor ciidamadu qabsadeen dukumiintigii maxkamadda lagu qabto laga soo qaaday oo laga helay magacyada dad waaweyn oo annaga madax noo oo canshuur bixiyayaal aryadaha kuwaas balad buruuf male miya war wadnaha iyo malakimoodka bulu buruufta ma celin karto warnimayo waxa la yiri nin kasta wakiil looga dhigay qarankan weydoobay oo shacabkan wiiqmiya bulshada waajib laga saaray aakhiro war weyn baa u yaalo wallaahiya xilkan kama waxaysan haddaad weligii haysaane waqtigoo dhammaadiyo markii wiishka lagu yeersho weji inaad ka weysaan bulshada soo wax kala ma waraa jiri doone wiishka lee ayeere waraa jiri doone aan maqli jira waqtiga waa dhamaade weerahooga dhaafe waqtiga waa dhamaade ya dheegi jiri ana waxaan maqli jiray waynaan daareemine dadka kii dhergow daran malaal iyo dulaal iyo tibu socodna waysaga maad miiganaan ka raalligelihaa taasna ana waxaa maqli jiri waa beri waxaa jira jubba aaka sholololub waraaday waxaad ku fiicneed xabsiga taliya shub in lagu geey wareedhaa war ma haysaane kiiskii qalbi dhagaxoo maalmahan la soo shiday haddana waa sii shidmay ma basiinaa lagu sii shubay war king rodan banzin oo isijiinga laga bafuufi wasiirkii hore arrimaha gudaha Cabdi Faarax Saciid Juxa wuxuu yiri arinta qalbi dhagax markii golaha wasiirada la keenay 2 saacadood dood adag ka socotay ugu horeyn wasiirad Mareen Qaasina diiday
oo tiri qof Soomaaliya Etoobiyaan kama dhigi karno waana qalad oo wuxuu yiri ugu ragsanayd wasiiradii meesha joogay xataa ra'iisul wasaaraha war wixii rag meesha joogayba ma maryana ka wada ragsanaatay war meeqaad idin dhahaynay dumarka hoggaanka loo dhiibo yaa hadda wixii ka dambeeyo qoondada dumarka waa geedka go'ana idin leeyahay gafxuma geeriya karo warka iga dhaxgelinine ala kulli xaal markii 2 saacadood la doodayay kadib ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka mahdi guulada warqad la soo baxay buu yiri warqadii buu akhriyay markuu dhameeyana ra'iisul wasaaraha yiri loo codeeyo koow maryan qaasin mayay ku codeysay waana baadilay tiri aniga juxaa iyo wasiir Cabdullaahi Salaad Umarna waa ka aamusnay buu yiri intii kale waa ansixiyeen war alla ilaahnimo wasiirada waxay dhigi doonaan maalintaas shirka ma joogin warnimayo waxa la yiri laba nin hadda ka hor wada gari go'ana ku safray ayagoo ay ka cadahayay guri sodohdood yimaadeen islaamtu aribay oo qaadanaysa waxa tiri neef baan idin soo qalay aqalka si harsada aqalkii inta harsanayeen way baahnaayeen haan ay ana kululanaysay inta arkeen bay tiraadeen wax yar furka ka sii dhuuqa aniga baa ku soo furtay haanti baa higaaga ku goosatay ayagoo irtii korkooda iyo meel walba dhulka kamida ku taadsan tahay ayay banaanka fiirshaan saaduqdii sodohdood ahayd baa soo socota labadii nin mid naxdin bay naftu kala dhacday midna haantii uu inta sii murmurugsaday yuu asagoo madaxa kula jira islaantii inta kor u fiirsho wuxuu yiri ninkii xishoonayo waa dhintay ma xishoodana waa ka soo dhaga weyn baraaja galmudug ma iska baraajoata Jubbaland sadamada wiinaha wadneereen madawiina afgaalka ayaa koo kuwada ahlul sunnah koo hawadan nabadina la goorta gareena wadadeen baraajo war deegaanada galmudug baahi dawladeed oo badan baa ka jirta saddex ka yar kuma filaba afaray wiliga qalutu ku wareeji jirtaan war ma haysiine xildhibaanadii ahlu sunnah abalkii hore 20 ahay waa kala jabeen maanta xildhibaan shaacir sheego wuxuu yiri hadda urudiimeed waa ka baxnay oo waxaan nahay baarlamaan sharci ayaan ku kala baxaynaa khamiiska isku siibni suuda galani yaan la jeede war maxaa qeeraa abraxallahu naxariista wuxuu yiri nuur cadda sharci ma hanjaab kana kuma wadayo aryaadaha wax ma ogdiina bariga war culusaan idin haya generaal Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Cabdiraxmaan Guulwade oo kamid ah guddiga dawladdu u xil saarta wada hadalka Soomaaliland weeska casilaan la yiri xubinnimadii guddigaas madaxtooyada Soomaaliyana waxay tiri waa ka aqbalnay iscasilaadiisa sababtoo ah hadalka faaw ku waramay dhaheen war Guulwade wuxuu yiri waagii maxamed siyaad duqantii Soomaaliland loo geystay saxay ahayd war wala weynay dhiiga adeer aan ugu kicinine ma wada hadalkii ma taasaan ugu darteen war adiga kale waraani inuu sabiir muqdisho noogu imaw yaa ma wareersantii ninku dilaa ku daaweeyaa la yiri war ma maayada ku dheelin laba isdhisma daaweysaa la yiri war ma maadinku ku dheelin gaan daahir ee wal daahir yaa saleeray war daqar intaan ahayn daarasha leedahay tiimashnu kala wada wariyada war adeer ba maayada ku dheelin laba qaawil isma qaadi karaan war idinka yaa waxaas idin sheega war guddiga la wareegaysaan muuse bixi ma ka warqabo yaa ku yiri waa ali muuse bixi ma